السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان umada Soomaaliyeed waa salaamaya waxaan maanta wareysi ka qaadayaa gabar Soomaaliyeed oo ku nool wadanka Jarmalka isla markaana uu ku dhacay xanuunka dunida faraha baan ku haya ee coronavirus gabadhaas waxay ku nooshahay wadanka Jarmalka hadda ay khadka si toos ugu jirtaa magaceeda sawirkeeda iyo magaalada ay degan tahay waa qariyay sababtoo ah umada Soomaaliyeed waxa ku taqaaneen inay ku badan tahay cunsuriyeynta ama faquuqida oo xanuunka laga yaabo dartii inay u faquuqaan walaalo ugu horeyntii soo dhawow waa shiina culay oo kaaga mahad celinaya sida uga aqbashay inuu wareysigan ka qaado عليكم السلام وعليكم mahadsantahay waana ku dhawahay saa sheegtay aniga wadanka Jarmalka joogaa mana rabo magacayga iyo sawirkayga iyo meesha aan joogo in la sheego waana ku mahadsantahay inaad qarisay walaalo waxa weeye sidaan xogta ku helay markii dambena adiga ay xaqiijisay waxa ku haleelay xanuunka coronavirus xanuunka sidee buu kugu dhacay xagee baase ka qaaday aniga waxaan ka shaqeeyaa dhakhtarkaan ka shaqeynaya bukaan ayaana loo keenay bukaankii wuxuu ahaay bukaan caadi iska qabo oo ii sheeg waxa la yiraahdo wax ku dhaca sanbabada cudurro ku dhaca kamid ah marka aniga si caadiyaan bukaanku ula macaamilayno calaashaan u daaweynayna mana maleynayno inuu cudurkan qabo mana ka shakasaneen maalmihii dambe ayaa bukaankii waxaa laga helay calaamado kamid ah calaamadihii cudurkan hadda adduunka ku faafay la yiraahdo coronavirus marka calaamadihii markaan ku aragnay ayaa waxaa laga qaaday waxa la yiraahdo testigii ayaa lagu sheegay marka ugu koowaad inuu positive noqday kadib dadkii la shaqeynayo dhan ayaa la wargeliyay in cudurkan uu qabo bukaankii aniga marka 2 isbuuc ayaan bukaanka aan u dhawaay oon aad ugu dhawaay oon asiga bas iyo kuwa kale sorry oo shaqeynay kadib bukaankii waxaan ku dhahay bukaamadii kale حتى والد لي كرنتيركا أنا وحنا لي رجولين جوجا هذا أنا وزعت عافمات قال سو حريرتي لمبر على الإسية هذا وحقيقي ما أنا قلنا دي باريسي مرلوات إن عذر كان حلالي على مدى بدن نسكو أرجع عذر كان دوية قانو إن فيره آد يحنون عيان أو سبب يحنون عيان نايفتي دبسو فعدرن الحمد لله شكر هندي شبه المليه أنا لكن سنتي intaynan u guda gelin waxyaabaha dareemayso markii bukaanka xanaaneynaysan xanuunka laga helay ka bacdi baaritaan baa lagu sameeyay oo lagu ogaaday in xanuunka qabto Soomaa waxa la yiri marka dadka la shaqeynayo dhan waa inay guryahooda joogaan ma iman karaan shaqada ma garatay waayo haddii anaga aan shaqada imaano bukaamadii kala siya qadinina oo ayaga u nugulay ma garatay waa anaga hadda alxamdulillah shukr cudurro ma qabo oo ii sheeg oo cudurkan idil kara sida sokorta oo kale dhiig karka oo kale tay cudurrada kabadnaha ku dhaco kale aniga ma haysto waxa la yiraahdo Jarmalka ku dhacan niman diagnosis ama cudurka adiga oo ii sheeg kula nool ma qabo marka alxamdulillah shukr anaga oo kale hadda inaan ka badbaadna laga yaabo laakiin aniga waxaan u yara baqaynaa ama u baqayaan dhaqaatiirta in dadku bukaanku meesha joogo in cudurka sii qaadaan oo dhakhtarka lagu daaweynayay markii xanuunka laga helay oo lagu sheegay dareenkaagu sidee noqday wala horta aniga baan fiican horta qof islaan ah alxamdulillah shukr ilaahi aaminsan markii aniga calaamadaha isku arkay adiga la qabiis ilaa hadda isku arkay horta aniga kood hore iskama shakasaneen marka waxaan iskaga maleynaa hargabka caadiga ah markii la yiri cudurkaas oo qaba bukaanka aniga aan u dhawaay marka aan dareemo waxa ayaantan yahay inay ahaayeen cudurkaas oo la jiifay oo la xanuunsanay markaas waxaan dareemay cabsi ay gashay been inaan sheego ma fiicno waxaan sheegay oo wax runay cabsi ay gashay dhimasho ay soo sabarantay hadda ilaaha isku xiro waxaan alxamdulillah wax intaas ka badan ba adduunka waad soo aragtay wadan aniga waxaan ka imaaday habeenii maalin hubiyaha dhacay xabad dhaceysay ilaahay kuwaas ba kaa soo badbaadiyaan maanta wuu kaa badbaadi karaa fayr jirkaaga sooga ilaahay kala saaro بودي بنا هذا هو إسرات حد يسوع مر القرآن يسوع أخيان راه أنا القرآن أخذت ساكي جركي قدرنا مريء مركا جورجان الجوجا دكتور معلن الله ما بهن إني أرجع حقنا وحوا سيد هرجب كل خلاء كليه وحول لي هرجب كل خلاء نخس كيلو كله وسنبض نصفي عن كاجا أبارو مركا دكتور حلو بين استجيان جوريه هو الجوجان هذا بنا كأنا أفكر دوتان ما قرأته
waa gartay xanuunka markii laga helay ma dhakhtar baa lagu dhigay mise gurigaaga lagu yiri ku sugnow maya dhakhtar laguma dhigaayo dadka dhakhtarka la dhigaayo waa dadka maxaa la yiraahdaa oo neefta aad u neefsi karin oo la siinayo oxygen bas dhakhtarka hadii lagu dhigo daawo lagu siin karo ma adiga cudurkan calaamadihiisa un baa laga daaweyn karaa maana cudurka lagama daaweyn karo calaamadihiisa laga daaweyn karo maxaa waaye in hawo lagu siiyo neeqaska markuu kugu dhaco in qandhadii laga dajiyo oo cirbad lagu siiyo kaniiniga qandho jibinta ah ama faleembadii qandho jibinta ah in haddii in sundungu ama waxaa la yidhaha caabuq kugu batana in lagu siiyo daawooyin caabuqa kaa yareena maahan cudurka horta lagama daaweynayo dhakhtarkana dadka la dhigaayo dadka waxay yihiin oo cudurka si aad u dilooda ma garata anigana horta kayma dilooda gurigayga inaan joogo oo aniga waxa ay yidhahdaa hoolun jabaa inaa adiga nafsadaada aad isheeg istiraexadooda gurigaaga joogtidoo aad isku daydid inaad wax fiican cunto fiican cuntid oo cuntooyinka sida anaga soomaalideen aan jecelnahay markuu hargabka ugu dhaca inaan cunno oo kaleeto sida inaan maraq cabno oo kaleeto waayo waxaa ka helaysaa awood badan inaad isheeg aad digirta kale cunto oo kale way fiican tahay inaad isheeg sanjabiilsha badsato way fiican tahay si uu adiga ugu yaraan wixii kaaga yaraadaan waa gartay hadda saacadan la joogo maxaad dareemaysaa aniga saacadan dareemay horta alxamdulilah shukr waxaa sheegto waa dambe hadda wax badan saas uma dareemay saaka markaan soo kacay sariirta ka soo kacay ayaa naqaskii ugu dheganaay neeftii ugu dheganeed tiiraha i xanuunayaan qufacay hadda xitaa qufici badnaa waa iga yaraada waa intaa ila hadlaysay hadda shaah sanjabiil lahaan cabay ma garatee waa gartay sanjabiilka waxay kaa caawinaysaa inay kuu furfurto maxaa la dhahaya dhuuntii meesha hawamareynta inay kuu yara furto hadda waan yara cabay sanjabiilsiyaan yara cabay iyo wixii hadda alxamdulilah shukr waa roonahay laakiin walaalo welwelka mar walba wuu jiraa waayo ma ogid beri si ay noqon doonto xaalkaaga ma garato waxaana waa cudur halisoo daawo loo helin ma garatay waa gartay hurdadaada oo kale sidee ahayd alxamdulilah shukr ana xala si fiican u seexday anigu hilbalala-aan walaa xala seexday shalay markii la sheegaya cudurka ani dhakhtarkaan joogay aan ka shaqeynayo ma garatay waa gartay shalay waan cabiray temperaturekeyga cabire waxaan arkay temperaturekeyga inuu sareeyo marka waan dareemaya inaan shubax aan liito haddana markaan gurigeyga imaaday waan casheeyey si fiican u casheeyey waan qubaystay jirkaan saliid marsada quraana akhrisada jirka dhanaa iska mariyey ilaah hadala saarto waa iska seexday waa madaalanaabo hurdada walaa si fiican u hurda saakay waxaan kacay 8 aan kacay oo weliba taleefanka ay ugu kicisa maclimadeyda waayaan iskoolaan dhigta arday ah oo habeenkii aan dhigta ma garatay ugu kicisay tiri waxaa kusoo waceysa wasaaradda caafimaadka markay kusoo wacda lambaraa lagu siinaya waa lagu imaanaya guriga kama bixi karto guriga joog ma garatay waa gartay marka wasaaraddiyaa marka hadda saaka ila soo hadashay lambaraa la isiiyey hadda markaa ayaka imaanayo waxay ga qaadayeen caawuqa lambarkaasaa marka anigana la isiinaya lambarkaasaa marka ka ahay dadka xanuunka qaba cabsi ma jirtaa ah bacdamaa iskuul dhiganaysay ardaydii oo kaleeta iskuulka la dhiganaysay inaa xanuunka ay kaa qaadeen oo kale waayo aniga horta galaaska aan dhigta galaas yar waayo galaas badan muus ahayn horta taasa ilaahay mahadiisa ah dadkii meesha joogan dad horta badan oo ardayda badankeedana ma wada joogan wax yaraa joogay marka ardaydiina waa la yiri macluumadii u sheegtay oo information ku gaarsiisay in aanay cudurka laga helay ardaydaasna ii sheeg ayakana maxaa la yiraahdaa inay guryahooda joogaan hadday isku arkaan calaamadahaasi la xiriiraan wasaaradda caafimaadka lambarka waa loo qora ma garatay maclimadana waxay tiri adigana guriga joog ka bixin ayadaaba hadda wasaaradda caafimaadka waxaa lagu soo xirtay anigana waxaan ka ahay qofka keliya iskoolka hadda cudurkaas kaga dhacay xanuunka sida waxa weeye jirta oo aa og tahay waa xanuun faafa oo maxaa ku dhahdaayay ay fududahay in la kala qaado dad Soomaaliyeed oo kula degan kuwa ehelka ah kuwa meesha kula jooga oo is aragteen oo is leedahay dadkaas halis bay ugu jiraan in xanuunka ka qaadaan ma jiraan horta aniga asxaab badan ma lihi dad saaxiibo badan ma lihi waa ilaahay mahadis inta cudurkan hadda qabanay horta waaba shaqeynaya badanka iskoolna waa aadayay dad badan oo calaashaan oo heli wax ii asxaab iyo lama kulmin wallaahi gabar meesha moonishin joogta agteeda amar u taga shala waana u bayara baqaya idan waan laakiin saaka waa ogeysiiyey waxaan dhahay arrinkaasaa jiro la soco ma garatay
سي أي يدو معناه إسوب بارتو أكله هذا علاماتها أكله سكور أنا شلي ما تهاوني والله هلا بس دقيقة يران لا جو وأنا كصوتك ما شاء الله مر هذا قاسيسي إن هدي دكتور كشقينيسي rajada ah qofku inuu maxaan ku raahday xanuunka ka kaco way sareysaa laakiin muddo intee la eg bay ku qaadan kartaa baa la yiri qofku inuu xanuunka ka kaco sida normaaliga oo caadiga ah qofka 2 isbuuc ayaa la karantiilaa ma garat 14 bil ma garatay marka qofku waxay ku xiran tahay hadba difaaca sidoo adigu u wanaagsan yahay ma garatay si fiican difaaca fiican yahay marka qofku sidoo asiga uu jirkiisa uu reaction ugu sameeyo ku xiran tahay qof waxa laga yaabaa inuu san badareemin cudurka inuu ku dhacay asigoo qaba laakiin wuxuu halis gelinayaa dadka kale oo sii qaadsiinaya ma garatay waa gartay qofna waxa laga yaabaa laba dhibta haduu difaaciisa liito qof waxa laga yaabaa inuu ku dhaco laakiin haddana ka kaco laakiin dadka sida badanka la sheegayo waa 2 isbuuc qof caafimaadka baratay oo ku shaqeynaysa baa tahay dalka Jarmalka ku nooshahay wuxuu kamid yahay dalalka uu faraha baan xanuunku todobaadyadii ugu dameeyay ku hayo waa sida xaaladda guud ee Jarmalka wala horta wadanka waxa la geliyay xaalad emergency ma garatay waxa hadda jiro wax la yiraahdo xitaa in iskoolada la xiray in xaalada meelihii isku imaanay sida meelihii ciyaarihii meelihii dadka xalfadaha ku dhiganaa wixii oo dhan waa la joojiyay barnaamijyadaasi waxa heegan la geliyay ciidamadii heegan la geliyay xuduudihii cirka dhulka badda meel kasta heegan la geliyay shaqaalihii caafimaadka xitaa dadkii gaboobay calashaan oo shaqada ka fariistay waxa la yiri imaada waa inay nacaawisaan wadanka heegan oo ku jira qof kasta oo nacaawin karo inuu nacaawiyaa oo qaabilsan caafimaadka dadka dambamiska waxa la geliyay oo qaabilsanaa xitaa shaqaayiga ku leen caafimaad waxa la yiri heegan gala ma garatay dadkii kalkaaliyaasha caafimaadka heegan la geliyay mid kale waxa ugu sii yaab badan xitaa dadku waxa la yiri caafimaadka ka shaqeeyo waa dadku ugu dambeeyo oo cudurkan laga baari doonaa la yiri ma garatay waayo hadda Talyaaniga dhibka haysta wuxuu yahay caafimaadka systemka dhan uu isku dhaxyaacay waayo dadkii shaqaalaha ahaa ayaa wada xanuunsan guriga wada joogay marka dadkii ayaa daaweynaa dhaqaatiirta marka waxa la yiri qofka cudurkan 2 qayb u kala baxaa qayb oo aad u daran iyo qayb oo iska yara caadi qofka marka waxa la yiri qofka yara caadiga qabo qofkaas kala shaqada waa inuu imaado la yiri asigoo wato shut waxay yiraahdaan shut marka ma qaayo difaac sanka inuu xirto kala duwan bilkiisii wixii oo dhan uu ku xirto uu shaqeyn karaa la yiri ma garatay Jarmalkana ra'iisul wasaaraha wuxuu sheegay ama wasiirada wadankani waxay tiri qolkiiba 70 wadanka cudurku wada haleelaya wuu nagu wada dhacayaa ilaa iyo damaadka 2020 ma garatay cudurkani wuu soconayaa wadanka dhan wuu haleelayaa boqolkiiba 70 marka waxay tiri dadka looma baahna inay sheekaysi walwal badan sameeyaan qof walba uu ku dhici doonaa oo wadanka joogo laakiin tarisee waa in anaga aan caafimaadkeena hadda anaga aan kasii taxadirnaa aan kasii hortagnaa oo aan ku dadaalnaa siiba nadaafad ma garatay waa gartay waxa noo sheegtaa dhowr calaamadood ay isleedahay waa u muhiim oo dadka halkan ka daawanaya oo kale ka dhigaysanaya oo kale hadii ay isku arkaan ay tahay inay xanuunkaas maxaa ku raadayay ay iska baaraan inta baaritaanka natiijadiisa ay helayaanna ay isxakameeyaan oo bulshada ay ku dhex jireen ay xanuunka ka ilaaliyaan waxa kamid ah sidaan halku ugu sheegay inay horta kooda hore isku arkaan qof xalaalan dhunta inay sheeg xanuunto in fiiraha ku xanuunaan ama fiiraha ma dhihi karnay sanbabada aan dhahnay Soomaalida laakiin fiiraha iska dhaan mudka sanbabada ku xanuunaan in maxaa la yiraahdaa aad neeftaada aad neefsan weysid caadiga marka u fadhiisto kala aad neefsan karno inaad kor isku qaadeen qonays neefta ku dhiyara dhibayso in qandho badan isku aragto qandhadaada hay tahay kamid ah in mar walba aad hindishaysid waa sida hargabka oo kale calaamadihiisa oo kale laakiin wuxuu dheeriyaa kaliya in uu neefta ku dhageyso ma garatay waa gartay qofka markuu ku dhaco maxaa khibrad oo hadda xanuunka kala kulantay oo aad dadka u gudbinaysaa maxaase kula talinaysaa qofka markuu ku dhaco inuu sameeyo qofka anigu waxaan kula talin lahaa horta qofka hays ogaado wuxuu yahay hays ogaado waxaan ka wadaa inuu horta hore u xanuunsanaan jiray oo cudurro la noolay in uu yahay in uu immune systemkiisa uu leeyahay ama difaaca jirkiisa yar yahay markuu intaas isku arko inuu sida ugu dhaqsiyaha badan uu la xiriiraa uu dhakhtar la tashtaa uu dhakhtarkiisana u sheegaa waxyaalaha uu asiga uu la nool yahay
laakiin hadduu qof dhalinyaro oo caadi oo caafimaad qaba yahay waa inuu wasaaradda caafimaadka uu wargeliyaa gurigiisana uu jooga uusan qabin marka ayaga marka wasaaradda caafimaadka fureysanayaan markay fureystaan waxyaalaha adiga ay ku leeyihiin inaad gurigaada joogtid iyo in dhakhtar lagu soo diro ambulance lagu soo diro dhakhtarka lagu dhigaa waayo qofka hadduu cudurkan uu la nool yahay cudurro kale wuu dilayaa ma garat guriga ma joogi karo waa in dhakhtarka la dhigaa si hawo loo siiyo oxygen loo siiyo waa naqska kugu dhigay ma garatay waa gartay marka macnaheedu waxa weeye qof walba oo xanuunkan uu ku dhaco yuusan filan ama u qaadan in hore cusbitaal laga dhigayo oo uu daaweyn ka helayo hore isbitaal aniga hadda kula hadlaayo aniga horta cudurro iyo lama nooli wax lama nool waa qof caafimaad qaba alxamdulillah shukr haddana sidaas ay gurigeyga joogaa sideeda caadiga u noolahay waxa kaliya oo laga raba lambarkaas oo la siiyo qofka ku dhacay cudurkan waxyaala kaalmaadka lagu siinayaa oo ka yareynaya calaamadaha cudurkan ka yareynaya ma garat sida in qandhada laga jibiyo kale waxaasna aniga hadda waa samaysan karaa gurigeena hadda daawo ii taala ma garatay waa gartay marka xanuunka laga baarayo kale qofka marka la baarayo baaritaan noocee ah la mariyaa waxa laga qaadayaa xarkoosiisa waxa lagaaga ama afka waxa lagaaga qaadayaa bahal afka laga gelina laga marmarnaya waa la qaadaya waxa lagu soo baarayaa laboratoryga oo qaadaysan viruska ma garatay laboratorygu uu kala baxaa mid baara gooryaanada mid baara bacteria mid baara viruska marka midkan waa midka viruska baara ma garatay marka coronaska lagu sheegayna waa groupyo oo isha waxa kamid ah viruska ma garatay okay marka groupkan marka waa laga baara marka coronaviruska asiga groupyo kala duwan marka groupyada kala duwan marka groupku yahay laga baaraa ma garad group halista ah inuu yahay inuu groupki halista ahayn uu yahay marka coronaviruskan wuxuu ka yimaadaa xayawaanada ma garad aad iyo aad ugu dambeyntii dadka Soomaaliyeed halka ka daawanaya maxaa kula talinaysaa waxa jira dad badan oo wadankii ku nool inagoo og wadankeena inuusan nidaam caafimaad oo adag lahayn haddana aad loogu walwalayo dadka Soomaaliyeed meel kasta adduunyada ku nool yihiin oo halka ka dhageysan doono ka daalcan doona maxaa kula talinaysaa gabagabadii waxaan kula talin lahay horta anaga Soomaalidana nadaafada horta waan ku wanaagsanaa badanka in nadaafada aad loo ilaaliyo in Soomaalida dhaqan lagu yaqaan jiray in sanka farta gashtaan oo kale waxa sanka maanta dhan mariyaan inay iska daayaan inay gacmahooda dhaqdaan inay gacmahooda wajiga ka ilaaliyaan in mar walba waxaan ku dhahay contact ay la sameeyeen dadka ay isku hab isasiinin salaamin ee qofka gacanta xabadka iska saaraan dhahaan ayagu 1 mitir u dhaxeeyo kaleeto salaama meesha saqol haduu arko qofka inuu qufacaayna please oo sheeg dadkaas ama hadaan uga sheegay yaana gacanta lagu quficina gacanta meesha kiskis agteeda saan haloo saarto haloo qufaco yaan gacanta saan loogu qufaco waa hada gacanta ugu qufacid albaabka taabanaysa shay kala taabanaysa ama qofka ku salaamaysa qofkina sidaas uu sahlan kaaga qaadaya marka dadka waxaan kula talin lahaa markii calaamadaas isku arkaan oo kaleeto ani Soomaali waxaan umaleynaa inay wasiirada ayada hadaba dadkii meel u karantiireysay u sameysay inay la xiriiraan dawladda lambar gooni loo sameeyo dadkaas ay ka wici karaan mid kaleetana dadkaas guryahooda joogaan ilmaha iyo dadka kaleetana ay iska yara fogeeyaan ma garatay aad baan kaaga mahadcelinayaa sida u ogolaatay inaan wareysiga kaaga qaado waxaana ku rajeynayaa soo kabasho degdeg ah iyo xanuunkaas in Ilaahay waxa weeye uu ka bogsiyo daawadayaal ama dhageystayaal saan hore idinku sheegay gabadha magaceeda sawirkeeda iyo magaalada ay degan tahayba idinlama wadaagi karo iyadaas iga codsatay waana sida caadiga ah maadaama laga yaabo inay bulshada qaarkood ay kala kulanto soocitaan oo kale ama faquuqitaan oo kale walaalo aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa sida qiimaha leh wareysiga noo siisay Alam